anta waxaanu sharaxi doonaa film caqligaaga kordhin doona ahna film psychology kaas oo lagu magacaabo exam ee daabo oo taxadarne bilowga filmka 8 musharax ayaynu aragnaa ayagoo isu diyaarinaya imtixaan shaqaaleysiin ahna shaqo ganacsi oo faa'iido badan musharaxiinta qaarkood waxay isku dhiirigeliyeen erayo dhiirigelin halka qaarkood ay isteelkooda iska saxayaan ka hor intaysan u gudbin howlka imtixaanka goobta imtixaanka ayaa aad looga shaqeeyay si siman ayaana kuraasta loo habeeyay waxa kale ay leedahay goobta camera lagu la socdo dhaqdhaqaaqooda 8 qof markii ay fadhiisteen waxa qolka soo galay waardiye hubsita waxaana la soo raaciyay nin aan magaciisa u sheegin laakiin si fudud isu baray musharaxiinta inuu yahay duuliye kadib waxa uu ka raali gelinayaa dhibtii ay kala kulmeen inay qolkan soo gaaraan isagoo daaha ka qaaday in musharaxiintu ay ka gudbeen dhammaan habraacyadii hore ee shaqaaleysiinta uuna yahay imtixaankii ugu dambeeyay ee finalka wuxuuna u sheegay in haddii ay ka gudbaan imtixaankan ay heli doonaan shaqooyinkii ay ku riyoon jireen intaas kadib dooliyaha waxa uu ku amray inay raacaan sharciga imtixaanka waxaana ka mid ah inaan loo ogolaan inay la xiriiraan ama ay la hadlaan dooliyaha iyo waardiyaha sidoo kale haddii ay si bareer ah ay u halayaan warqadda ama si kama ah haddii ay qolka uga soo baxaan sabab kasta ha ahaatee waa laga reebi doonaa imtixaanka musharax walba ayaa heli doona 8 daqiiqo si uu dhameystiro imtixaanka waxa jira oo kaliya hal su'aal oo ku qoran warqadda taas oo laga doonayo inay ka jawaabaan dooliyaha ayaa inta uusan bixin weydiiyay ma jirtaa wax su'aal ah intaas kadib qofna uma jawaabin kadib dooliyaha ayaa u rajiyay nasiib wuuna bilaabay saacada wuuna iska baxay intaas kadib musharaxiinta ayaa warqadooda fiiriyay laakiin waxay arkeen waraaqda oo aan waxba ku qorneen dhammaan way isfiirfiiriyeen wayna ku wareereen waxa su'aashu ay tahay mar walba uu waqtigu sii socdo jahwareerka ayaa ku sii badanayay musharaxiinta haddaba musharaxa lambarka labaad ayaa bilaabay inay ku qorto warqadeeda sababta ay ugu maleynayso inay u qalanto shaqada laakiin isla markiiba kaamirada qolka ayaa soo jiidatay waraaqdeeda waxaana loo sheegay waardiyaha inuu ka saaro qolka maadaama ay ku qortay waraaqda waxaan loo ogoleen waxayna codsatay in la siiyo fursad labaad laakiin waardiyaha ayaa xiray albaabka in yar kadib lambarka shanaad wuxuu ogaaday in sharcigu uu ku amrayo inaysan la hadli karin dooliyaha iyo waardiyaha taas oo micnaheedu tahay inay wada hadli karaan ayaga isla sidaas oo kale ayuu kuwa kale u sheegay taasoo ka dhigaysa inay rumaystaan inay tahay inay wada shaqeeyaan si loo helo su'aashu waxay tahay ka hor inta aysan helin jawaabta kooxdu waxay ka hadleen dhowr siyaabood oo ay u gudbi karaan imtixaanka laakiin weli way ku jahwareersan yihiin su'aasha intii ay ku guda jireen dooda musharax lambarka koowaad ma uusan hadleenin oo wuu iska aamusnaa mid ka mid ah ayaa isku dayay inuu isbaro isaga laakiin lambarka shanaad ayaa isla markiiba soo jeediyay inay isu bixiyaan magacyo xayawaan ah si ay isu bartaan ma aha inay muujiyaan aqoonsigooda dhabta ah isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu magacaabay lambarka koowaad wuxuuna u bixiyay Def sababtoo ah weli ma uusan hadlin kadibna ragga kale waxaa lagu magacaabay brown black iyo white iyadoo loo eegayay kalarka jirkooda gabdhahana waxaa lagu magacaabay blonde brunette iyo dark intaas kadib white wuxuu soo jeedinayaa inay ka kacaan kuraastooda sababtoo ah ma jiro xeer noocaas ah wuxuuna bilaabay inuu kaco qof kasta wuu ku farxay waardiyihii ma uusan qaadin wax tilaabo ah taasoo la macnaha inay si xor ah u wareegi karaan brunette waxay aaminsan tahay inay su'aasha loogu qoray qad aan la arki karin dhammaantood waxay ku heshiiyeen inay tijaabiyaan aragtidan laakiin ma garanayaan sida ay u ogaan lahaayeen brunette ayaa markaa kacday iyadoo adeegsatay nalalka qolka si ay u eegto haddii ay wax warqadda ku qoran yihiin si kastaba ha ahaatee ma jiraan wax u muuqda iyada waxay weli ku adkaysanaysaa in qof kasta uu hubiyo tiisa sababtoo ah su'aashu waxay noqon kartaa mid qof ka mid ah lagu qoray waraaqdiisa qof kasta wuu sameeyay sida ay dhahday marka laga reebo Def fadhigiisa ayuu aamusnaan ugu fadhiyay White warqadiisa ayuu qaatay iftiinka ayuuna ku eegay kadib markii ay heli waayeen wax natiijo ah Black ayaa soo jeediyay in qoraalka laga yaabo in kaliya lagu arki karo falaaraha ultravioletka ama raajitada kooxda ayaa markaas bilaabay inay raadiyaan systemka laga maamulo iftiinka qolka si ay u eegaan in haddii ay ikhtiyaar u heli karaan inay ka bedelaan nooca iftiinka qolka markii ay waayeen waxay bilaabeen inay raadiyaan isha iftiinkaas laftooda Dave sinaba uma caawiyo oo si cabsi leh ayuu kursigiisii ugu fadhiyaa Blonde waxay heshay xariijimo nololka degdeg ah ee qolka laakiin mar haddii aysan jirin meel ay ka bedelaan iftiinka qolka kooxdu waxay soo jeediyeen inay jabiyaan nololka qolka si nalka emergency-ga uu u daarmo Brown ayaa intaas kadib u sheegay in halistaas aysan samayn karin sidaa darteed waxay u codeynayaan arrinta oo ugu dambeyntii go'aansadeen inay sameeyaan qorshaha kadib markii la jabiyay dhammaan nalalka iftiinka ee qolka waxaa si lama filaan ah u daarmay nalka emergency-ga buluuga ah qof kasta wuxuu bilaabay inuu raadiyo su'aasha warqadda marka laga reebo Def laakiin mar kale way niyad jabeen sababtoo ah ma arki karaan su'aasha Brunette waxay weydiinaysaa qof walba inuu ka saaro lakabka ugu horeeya ee iftiinka sababtoo ah ma ahan iftiinka saxda ah
tani waxay dhalin kartaa shucaaca ultravioletka kaas oo caawin kara iyaga. waxay isticmaaleen ciribta kabaha gabdhaha si ay u jabiyaan. si kastaba ha ahaatee mar kale ay la kulmeen niyad jab sababtoo ah nalalkani sidoo kale ma shaqeynayaan. hadda kooxda waxa u haray 60 daqiiqo. White oo niyad jabsan ayaa qof walba weydiiyey inuu ka fikiro xalka arrintan. White ayaa u sheegay inay ku qori karaan wax walba waraaqda number 2 maadaama mar hore laga reebay iyada imtixaanka. intaas kadib waxay ku soo urureen miiskeeda oo ay isku dayeen inay waraaqdeeda qalin ku xarxariiqaan, laakiin nasiib daro wali ma aysan helin su'aasha. White ayaa markaas jeexjeexay waraaqdeeda qaybo ka mid ah si ay u adeegsadaan tijaabinta hababka kala duwan. marka xigta waxay tijaabiyeen in waraaqda dareere haddii la dhexgeliyo in wax laga arki karo, laakiin sidoo kale waa ay ku guuldareysteen arrintaa. intaas kadib Black iyo White ayaa dood kula dhex martay, laakiin waxay joojiyeen kadib markii ay maqleen oohinta Def. si aamusan ayuu ku bororanayaa kursigiisii halka kuwa kalena ay daawanayaan. intaas kadib ninku wuxuu bilaabay inuu af Faransiis ku caayo ayaga, laakiin ma aysan sii raacraacin aflagaadadiisa waxayna dib ugu noqdeen doodooda. qof kasta wuu aamusay markuu Brown hadlay. wuxuu soo jeedinayaa aragti isaga u gaar ah, wuxuuna u sheegay inaysan jirin imtixaan laakiin ay ku jiraan nooc ka mid ah bandhigga sharadka. wuxuuna u sheegay in shirkadda ujeedada kaliya ay tahay inay nagu maadeystaan. waxaan u maleynayaa in Brown uu daawaday Squid Game, laakiin Dag ayaa qabta in xubnaha shirkadda ay u badan tahay inay haystaan waxyaabo ka fiican oo ay ku sameeyaan waqtigooda. intaas kadib qaar baa ku andacooday in laga yaabo in duuliyaha uu ka dambeeyay imtixaankan, halka qaar kale ay leeyihiin waxaa ka dambeeyay madaxa guud ee shirkadda. waxayna bilaabeen inay isku buuqaan oo iyaga dhexdooda iscaayaan, laakiin Dag ayaa si kalsooni leh u tiri inaysan jirin dad daawanaya ayaga sababtoo ah maamulaha guud ayaa gacanta ku haya shirkadda, waxa uuna leeyahay xuquuqda shirkadda iyo awoodda qof kasta. way caddahay in ay wax badan ka ogtahay shirkadda ka badan cid kasta oo kale. Brown waxa uu weydiiyey sida ay wax badan uga ogtahay maamulaha guud. waxaa intaas kadib soo baxday in Brunet ay wax badan hore uga shaqeynaysay shirkadda, laakiin weligeed aysan arkin maamulaha guud. way dalbatay shaqo sare, haddana halkan ayay joogtaa. si kastaba ha ahaatee hal shay ay dhammaantood ka saman yihiin waana inaysan waxba ka ogeyn xogta shirkadda ay imtixaankeeda u fadhiyaan sababtoo ah waxaa loo sheegay inaysan wax su'aal ah weydiin. Brunet ayaa markaa u sharaxday inay dalbadeen shirkad caan ah oo $1 billion ku fadhiso oo soo saartay daawooyinka taas oo lagu magacaabo B-Rock. dhowr sano ka hor markii cudur faafo uu dhex faafay dhalinyarada adduunka, iyaga ayaa ahaa kuwii ugu horreeyay ee daawada helay. hadda dakhligoodu sanadkii waa $20 bilyan ka badan. dhammaan waxaa sabab u ah maamulahooda guud. si lama filaan ah Black ayaa soo jeedinaya in shirkadu ay daawo u helayso cudurka dilaaga ah ee ku cusub dunida kaas oo dilay malaayiin qof ee adduunka. Brunet ayaa si lama filaan ah u xiiso gelisay wax badan ayna ka weydiisay Black. tani waxay ka dhigaysaa White inuu shakiyo. intaas kadib wuxuu weydiinayaa Brunet haddii ay sidoo kale ku dhacay fayruuska iyada. Brunet waxay sheegtay inuusan ku dhicin iyada. intaas kadib waxay bilaabtay inay u soo dhawaato waardiyihii, kadibna jeebkiisii ay kala baxday jante iyadoon la hadlin. intaas kadib waxay aadeen dhinaca alarmiga dabka. kooxdu waxay qorsheysay inay adeegsato dab si ay u kiciso alarmiga biyaha sababtoo ah biyuhu waxay kobcin karaan qoraalada warqadda. tan awgeed Brunet ayaa fuushay kursi, laakiin way u suuragali weysay inay gaarto alarmiga dabka. White ayaa ku caawiyey isaga oo siiyey warqad duuban, kadibna jantuhu ayay ku shiday si ay u kiciso alarmiga. isla markiiba biyuhu way bilaabteen wayna soo daateen, laakiin warqaduhu waa sidii hore oo waxba kuma qorna. isla markiiba waardiyihii ayaa u dhawaaqay kooxda. isla markaa Brunet ayaa kala furfurtay warqadii gacanteeda ku jirtay, waxayna aragtay inay iyadu leedahay warqadda. White ayaa qiyaameeyey si ay ugu guuldareysato imtixaanka. waardiyihii ayaa intaa kadib jiiday banaanka ayuuna u saaray. intaas kadib Black oo xanaaqsan ayaa sheegay inuu feerayo White. tani waxay ka dhigtay in nalalka isla markiiba damaan. intaas kadib Def ayaa bilaabay inuu ooyo. White ayaa u soo hor fadhiistay, wuxuuna bilaabay inuu maskiinka u cago jugleeyo uuna ku cadaadiyo in warqadiisa uu jahjaaxo. intaas kadib warqadiisii ayuu jahjaaxay wuuna cunay. waardiyihii ayaa u soo dhawaaday Def, kadib banaanka ayuuna isna u saaray maadaama uu warqadii jahjaaxay. hadda waxaa haray 5 musharax oo kaliya. Black wuxuu intaas kadib ku tilmaamay White inuu yahay qof xun, laakiin White waxa uu ku adkeysanayaa inay uga mahad celiyaan sidii uu uga saaray tartanka kuwa kale. wuxuu kaloo sheegay inuu garanayo su'aasha waxay tahay, laakiin wuu diiday inuu u sheego kuwa kale. Black isagoo xanaaqsan ayuu isla markiiba la dhacay hal feer. kooxdu markaas waxay ku xireen kursi, waxaan afkiisa ku xireen tahay. in yar kadib White ayaa dib u helay miirkiisa. Dag ayaa ka furtay afka, wuxuuna weydiistay daawadiisa isagoo sheegay in sidoo kale uu qabo fayruuska, isla markaana ay tahay inuu qaato daawada saacad kasta si uu u noolaado. Black wuxuu raadinayaa kaniiniyo jeebkiisa ku jira, laakiin wuu ka waayay jeebkiisa.
tani waxay ka dhigaysaa kooxda inay rumaystaan in White uu cudurdaar ka dhiganayo si ay uga furaan xariga. Si kastaba ha ahaatee, White ayaa sheegay in haddii ay daawada siiyaan uu u sheegi doono wax su'aashii ay tahay. wax yar kadib mar kale ayuu miir beelay oo bilaabay inuu gariiro. qaar ka mid ah waxay aaminsan yihiin inuu been abuur yahay, laakiin Black ayaa sheegay inuu suuxdinayo fayruska dartiis, waxayna bilaabeen inay raadiyaan kiniinkii uu lahaa, laakiin ma aysan ka helin qolka dhexdiisa. 15 daqiiqo oo kaliya ayaa ka harsan saacadda imtixaanka. Daaga intaa kadib ka shaqisay Brown qaadashada kiniinka, waxayna ku cadeysay inay sax tahay arrintaas markay heshay kiniinka isaga oo ku dhagan xanjo ku dhagneyd miiskiisa hoosteed. waxay isku dayday inay siiso White, laakiin Brown ayaa tuuray. intaas kadib Daag oo walacsan ayaa hor istaagtay kaamirada, waxayna la hadashay duuliyaha si uu arrintan wax uga qabto. laakiin tani markii ay la hadashay duuliyaha, isla markiiba waardiyaha ayaa banaanka u saaray maadaama ay sharciga jabisay. Blonde ayaa intaas kadib waxay ka soo bixisay kiniinka meeshii uu ku dhacay, waxayna badbaadisay nolosha White. waxay sidoo kale ka furtay xariga kadib markuu bogsaday. qof kasta wuxuu weydiiyay isaga jawaabtii uu balan qaaday. White ayaa shaaca ka qaaday in jawaabta ay yihiin musharaxiinta laftooda. iyaga waxay raadinayeen su'aal intaas oo dhan, laakiin White wuxuu u maleynayaa inaysan jirin su'aal. wuxuuna u sheegay in kan aakhirka ku har qolka uu jawaabta yahay. inta kale way rumaysteen isaga, laakiin ka hor intaanay ficil qaadin, White ayaa orday si uu biskoolad uga soo qaato waardiyaha. isla markiiba Black ayaa gees u ruuxay, isaga laftiisa ayaana la wareegay biskooladda. wuxuuna ku aadiyay White, wuxuuna si kalsooni leh u sheeganaya inaanu cidna toogan doonin. isla mar ahaantaana White ayaa weeraray Black, isaga ayaana la wareegay biskooladda. si kastaba ha ahaatee, markuu isku dayay inuu isticmaalo, wuxuu ogaaday in biskooladda leedahay fingerprint. intaas kadib White wuxuu adeegsaday waardiyaha fartiisa si biskooladda ay u shaqeyso, wuxuuna ku amray inay qolka ka baxaan si isagu u guuleystay imtixaanka. iyadoo xaaladda intaas marayso, kuwa kalena ay aad u baqayaan, nalka qolka ayaa durbadiiba damay. qolku waxa uu galay gudcur mugdi ah. intaas kadib White ayaa xabadda iska gamay isagoo aan kala arkaynin dadka maadaama mugdi ay tahay. markii ay nolol ku soo noqdeen, waxa la arkay Black oo yaalo dhulka isagoo ay xabad uga dhacday xabadka. intaas kadib White ayaa eegay dhinacyada, wuxuuna arkay in Brunette ay weli lugteeda qolka ku jirto, wuxuuna go'aansaday iyadana inuu toogto. isla markiiba White ayaa arkay in saacadu ay dhamaatay. isla markiiba wuxuu aaday kaamirada, wuxuuna u sheegay duuliyaha inuu isaga guuleystay tartanka. waardiyihii ayaa u soo dhawaaday, wuxuuna tusay waqtiga. White wuu naxay markuu arkay inay weli harsan yihiin 20 ilbiriqsi, taas oo la macnaha inuu jabiyay sharciga imtixaanka maadaama uu la hadlay duuliyaha. kadib waxaa la ogaaday in Dave uu bedelay waqtiga markii ay mashquul ku ahaayeen ka doodista waxyaabo kale. ugu dambeyn, ka kaliya ee ku haray waa Blonde. qolka ay soo gashay iyadoo kor u qaaday ookiyaalaha Dave, kaas oo ka dhacay markii qolka laga saarayay. intaas kadib ayadoo adeegsanaysa ookiyaalihiisa, waxay ku egtay waraaqada, waxayna aragtay iyadoo ku qoran tahay question 1. haddaba midda ugu yaabka badan filimka ayaa ah in loo sheegay in Dave uu yahay maamulaha shirkadda, isla markaana uu ku jiray imtixaanka si uu isha ugu hayo qof walba. Blonde ayaa dhankiisa aaday, wayna aamini weysay in maamulaha uu isaga yahay. maamulaha guud iyo duuliyaha ayaa dhoola cadeynaya, iyagoo arkay inay fahantay jawaabta su'aasha ayna imtixaankii ka gudubtay. intaas kadib duuliyaha ayaa ku dhahay su'aasha jawaabtu inay ahayd kaliya su'aashii uu weydiiyay bilowga imtixaanka, taasoo ahayd ma jirtaa wax su'aalaha aad qabtaan. wuxuuna u sheegay in kaliya jawaabtu ay ahayd haa ama maya, waxayna ahayd su'aal qof kasta uu ka jawaabay, laakiin warqadda aysan ku qorin. imtixaanka oo dhan waxaa loo dejiyay in lagu tijaabiyo garaadkooda iyo feejignaanta musharaxiinta, waxayna shaqaalaysiiyeen Blonde iyadoo loo magacaabay xogayaha guud. ugu dambeyntii Blonde way aqbashay shaqada. filimkan halkaas ayuu ku dhamaanayaa iyadoo u gacan qaadaysa maamulaha guud. haddaba subscribe saar kanaalka si muuqaalada noocan oo kale ay ku soo gaaraan. like saar muuqaalka, wax badan ay naga caawinaysaa.